بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa maanta inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed xogihii ugu dambeeyay ee weerarkii shalay lagu qaaday eelaboorka aadan cadde iyo xarada xalane run ahaantii waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed inaan u iftiimay yaa ka dambeeyay wixii shalay dhacay maxayse ahaayeen shalay nimankii labada ahaa ee galay xarada xalana run ahaantii waa rag la soo abaabulay waxayna ka tirsanaayeen ciidanka jabhadda la yiraahdo ee shabaabka ee ka diriira galgaduud gaar ahaan area galhareeri raggaasi waa la soo safriyay waxaa loo soo safriyay Muqdisho baabuur baa la soo saaray dhalashadoodana waxaa la igu kala sheegay inay kala hayeen abgaal iyo gaaljecel sida xogta hadda aan ku helayo raggaasi waa la soo safriyay waxaana laga soo safriyay galgaduud waxaa loo soo safriyay meesha la yiraahdo Muqdisho si arrintaas ay u fuliyaan marka qaabkii loo soo safriyay iyo sababta ka dambaysa raba dadkina la wadaago waxaan rabaa inaan idin cadeeyo in raggaasi in laga soo safriyay meesha la yiraahdo galhareeri oo loo soo diray xamar ujeedkana uu ahaa in lagu carqalateeyo magaalada Muqdisho iyo xasiloonideeda qaabkay marka raggaasi maxay ahaayeen raggaasi waxay kamid ahaayeen ilaalada nin sargaal sare ah oo ka tirsan shabaab oo magaciisa la yiraahdo Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise kaba ku tukaday oo reer galgaduud ah balse barnaamijka howlgelinta iyo hawsha barnaamijkaas eelaboorka maaragtay lagu weeraray waxaa lugta ugu badan ku lahaa oo mataqaanaa abaabulkaas lagala tashtay Sheekh Xasan Yacquub Cali oo horay u ahaan jiray afayeenkii kooxda al-shabaab ee Kismaayo waqti xaadirkaana Sheekh Xasan wuxuu mataqaanaa gudoomiye ka yahay maaragtay galgaduud oo al-shabaab uu qaabilsan yahay waxaan rabaa marka inaan cadeeyo raggaasi inay maaragtay ay ahaayeen rag abaabulan oo meeshaas mataqaanaa laga soo abaabulay say marka xamar ku yimaadeen xamar waxay ku yimaadeen nimankaas waxay ka soo galeen dhinaca maaragtay shabeellada dhexe waxaa la soo mariyay ruunirgood markii la soo mariyay area meesha la yiraahdo balcad iyo jowhar soonaheeda markay soo galeen waxaa lagu soo qaaday gaari uu leeyahay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur run ahaantii Cabdullaahi Maxamed Nuur gaari uu leeyahay lagu soo qaaday sidaas xamar lagu geliyay waxaa la soo mariyay xaafadda la yiraahdo Gubadley Kaaraan baa la soo mariyay dhinacaas waxaa laga soo geliyay iskool booliisi sidaas ay ku galeen run ahaantii waa wax aad mataqaanaa looga xumaado in wasaaradii amniga ay iyadii abaabusho amni darra meeshii la rabay inay wax ka qabato amniga run ahaantii waana wax aad looga xumaado in shacabka Soomaaliyeed oo xilligan ku jiro xilli mataqaanaa abaara iyo sicir barar in xilligan wasaaradii amniga ee la rabay inay ilaaliso oo iyaga arrintooda wax ka qabato in mataqaanaa iyadii ay dhibaato ka shaqeynayso wax aad looga xumaado waxaan rabnaa marka inaan bulshada Soomaaliyeed u sheegno in ay sii kordhayso qatarta ka imaan karta mataqaanaa dhinaca mucaaradka maadaama mucaaradka dhinacii doorashada ay ku guul dareysteen oo maaragtay dhinac dhaqaale dhinac siyaasad intaba midna aysan maaragtay ku shaqeynaynin sababtoo haddeer waxay sameynayaan waxa la yiraahdo suicide maaragtay political suicide waxa la yiraahdo ismiidaamin siyaasadeed iyo hadda mataqaanaa sameynayaan marka waxaan rabnaa ummadda in mataqaanaa arrintaas inaan uga digno weerarkii shalay dhacay ee lagu weerarsanaa mas'uuliyadiisa halkaas uu ka yimid labadii nin ee mataqaanaa meesha gashay waxay ka tirsanaayeen ilaaladii kaba ku tukada laakiin barnaamijka abaabulkiisa iyo mataqaanaa hawshiisa waxaa soo howlgeliyay Sheekh Xasan Yacquub Cali saa hore in kugu sheegay isagaas mataqaanaa safarka soo geliyay Sheekh Xasan Yacquub dadka wada garanayaan waa afayeenkii hore ee shabaab jubbooyinku ahaan jiray marka barnaamij isku xiran waaye oo maaragtay mucaaradka ay ka shaqeynayaan oo rabaan amniga inay ku qalqalgeliyaan ummadda marka waxaan rabnaa inaan u sheegin ha laga digtoonaado ha la iska ilaaliyo qaraxyo badan hadda magaalada waa ku jiraan ciidamada ammaanka iyo cid walbana mataqaanaa waxaan ka codsanayaa in ammaanka aad loo adkeeyo wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh